السلام عليكم أصحابي بريبا واحد جري أي لديه جري ورسمي ورموجي كاس أو كنا ولا مال كينو قروح بدن أيجي باهي أترب بدن أيها هيسي كدب قراب أيو آدي سيدو السعودية أيجا والسعودية أيوه أركي لف مال تعالى كاس عبار كفكري لفته geesahana eegay wax laftan sheeganaya inay meelahan joogan kadibna nasiibanaag wuu waayay ayaga wax sheeganaya kadibna laftii ayuu qaatay si uu cuno wuxuu rabay inuu lafta cuno laakiin wali meelaha ayuu iska fiirinaya si degdeg ah ayuu isla markiiba laftii si u qaatay isaga oo baxay sida uu u socday ayuu wuxuu arkay meel webi ah kaas oo soo kor maray webigii meel jaranjara oo ku taalay kadib si kadiisa ilaa waa waxan guri weyne ayuu u fiiriyay biyaha aas wuxuu ka arkay biyihii humaagii laftii wuxuuna isiri ay kale oo laf haysta ayaa halkan ku jira hunguri ayaa ka galay hunguri weyniduna ma aha wax wanaagsan kadib waxoogaa ayuu fakiray intuu fakarayna laftii uu haystay ayaa waxay uga dhacday biyaha kadib markii uu cabaar fakarayay ayuu afka kala qaaday kadibna laftii ayaa wax uga dhacday biyihii marka sheekadan xigmadeedu waxay tahay caruuray hunguri weynidu waxay leedahay waxbeel wax laantu waxay leedahay waxbeel marka caruuray iska jira wixii aad haysataan waa inaad iimaansataan hunguri weyni inaysan idin qaadin hadii kale waxa kugu dhici doonta qisada aygan oo kale midna labaad waxaynu ku soo qaadan doonaa caruuray tukihii oo manaa tuke ayaa meel beri wuxuu ku noolaa abaar ah oo aad oo jileelku waxa dhigay kadibna wuxuu raadiyay meel uu biyo ka helo isagoo haadaya wuu fakiray isagoo geesaha fiirinaya waxa biyana meelaha ka eegaya laakiin gabi ahaanba wax biyo ama arkin kadibna wuu haaday isagoo wali aan ka quusan inuu mar biyo helo biyo ay raadis ayuu ku jiraa oon xun ayaa hayay tukihii uu duulaya isagoo raadinaya meel uu biyo ka helo kadib wuxuu ku soo kordhigay aqal cariish ah oo ka samaysan alwaax ayuu ku soo kordhigay tukihii isagoo isla markii hadana biyo meelaha ka eegaya ilaa imika wax biyo ama helin dowladana wuu ku daalay kadib ayuu sin dhaqsaa wuxuu arkay dheri ay biyo ku jiraan caruuray dherigii ayuu afka galiyay laakiin nasiib darro uu gaari waayay dheriga wuu fakarayaa isagoo aad u yaaban tukii miskiinka ahaa mar labaad ayuu adana weelkii afka galiyay laakiin waxba kama noo socdaan oo wax biyo ah gabi ahaanba ka muuse helin fikrad ayaa ku soo dhacday isaga fikrad ayaa imika ku soo dhacday taas oo ahayd in uu dheriga ka buuxiyo dhagaxaan fikradaas ayaa ku soo dhacday wuxuuna ku fakiray hadduu dhagaxaan quruurux ah uu raadiyo kadibna uu soo aruuriyo uu dheriga ku guro inay biyuhu kor u soo yara kacayaan taasoo caruuray ahayd fikradaad u wanaagsan kadib tukihii wuxuu bilaabay inuu quruuruxii ku aruuriyo dheriga mid ayuu soo gurbinayaa kadibna uu ku aruuriyay laakiin wali biyihii ma ahan kuwo kor u soo kacaya haddana dhagax kale ayuu soo qaaday isla markii uu ku riday wali uu ku riday haddana oo ku riday kadib biyihii ayaa si dhaqsaa caruuray kor uga soo kacay aqliga wanaagsan waasad alle xigmadda sheekadan waxay tahay caruuray aqliga wanaagsani waasad alle halkaas oo shimbirihii dhamaana gabi ahaanba iyaguna ay halkaas biyihii ka cabeen waa fikradii tukaha tanu tukii aqliga badnaa shimbirihii oo dhan ayaa halkaa ka cabay kadibna tukihiina uu iska biibay maadaama uu oonkii ka ba'ay marka caruuray sheekadan xikmadeedu waxay tahay aqliga wanaagsan inuu yahay sad alla bixiyo muuqaalkeena saddexaadna waxaynu ku soo qaadan doonaa sheekadii saddex doofaar waxa jirtay beryaha kamid ah saxaabe hooyo doofaarad ah waxayna lahayd saddex doofaar oo yar wax ay ku quuda oo siidana ma haysan gabi ahaan kadibna waxay go'aansatay inay
adduunka u dirto si ay u raadsadaan nasiibkooda. Kadib maxaa dhacay? doofaarkii koowaad wuxuu ahaa gebi ahaanba mid caajislow ah. uma baahni imika inaan u lugeeyo waqti dheer ilaa iyo warshada labanka. intaas kadib waxaan qaban doonaa shaqo aad u yar. gebi ahaanna gelinkayga dambe oo dhan waxaa noqon doonaa mid iska nasta. muuse doonaynba gebi ahaanba inuu shaqo qabto, saa darteed gurigiisi wuxuu ka dhistay caws, ileen waa talo xume ah. doofaarkii labaad wuxuu qabtay shaqo ka yara adag shaqada kii hore, laakiin isna wuxuu ahaa mid caajislow ah. maya ma doonayo aniga imika inaan warshada labanka aan u lugeeyo, sababtoo ah waa mid aad u dheer. mana doonayo aniga warshada labanka inaan u lugeeyo. taas bedelkeeda waxaan qaban doonaa shaqo yar, kadibna gelinkayga dambe oo dhan waxaa noqon doonaa mid iska nasta. ayuu yidhi doofaarkii yaraa. gurigiisii wuxuu ka dhisay ulo, kadibna waa ciyaareen oo boodboodeen isagii walaalkiis. maalintii inta ka dhiman oo dhan waa kuwa iska ciyaaraya, maalinta inta ka dhiman oo dhan ileen kuwa warmoogay. doofaarkii saddexaad wuxuu u muuqday mid shaqeeyey maalintii oo dhan. gurigiisiina wuxuu ka dhisay gebi ahaanba guri lamanad ah, kaasoo aad u qurux badan lehna meesha guriga laga kulayliyo iyo jikada wax lagu kariyo. gurigu wuxuu u muuqday mid aad u xoog badan oo iska celin kara dabeecada awoodda badan. haddii maalintii dambe yey ayaa wuxuu damcay inuu ka tallaabo halkii ay ku noolaayeen saddexdii doofaar ee yaryaraa raadkooduna ku yiilay, kaasoo isla markiiba arkay gurigii doofaarkii yaraa, sankana la raacay waxaa gudihiisa ku jira isaga oo odhanaya. kadib yeygii aad ayuu u qayliyey. doofaarkan yaru oo dhaylada ah wuxuu noqon doonaa casho aad u macaan oon cawada ku hay. intaas kadib wuxuu garaacay albaabkii isaga oo qaylinaya. doofaarka yarow iga furidida aan soo gale. doofaarka yarow iga furidida aan soo gale ayuu ku. maya ma furayo iritaaniga. ma furayo irita. maya inaa unta doonaysaa ma furayo. dabadeed yeegii ayaa yidhi ilkihiisii intuu tusay, waan afuufi ilaa uu gurigu gebi ahaantiisma noqdo mid burburay. waan afuufi wuu afuufay aasuu dabaysha raaciyey. kadib doofiirkii yaraa oo qarqaraya ayaa meeshii ku soo haray, laakiin nasiib wanaag doofaarkii yaraa waa cararay. intii tabartiisa ana wuu cararay uuna ka fakaday, wuxuuna galay gurigii doofaarkii kaloo yaraa iyagoo labadoodiiba isla qarqaraya. kadib yeygii wuxuu soo socdaba wuu ka daba yimid isaga oo uriyey. kadibna dhareer ayaa aad uga soo daatay markuu arkay cashada meesha taalla. alla cajaa'ibsanaa. kadib iridii ayuu gargaraacay isagoo dhareer ka socdo. iga fura iridda doofaarada yaryarow, iga fura iridda doofaarada yaryarow, iridda iga fura doofaarada. maya tan macquul ma ahan. walaalkayga yarow iridda ma furi karno. tan macquul ma ahan. kadib yeygii ayaa afkiisii kala jiiday, wuxuuna yidhi waan afuufi isagoo marmar ka dambaysa isa sii kala jiidaya, kaas oo hawo badan jidhkiisa ka keenaya, oo yidhi bal waanban afuufi oo haddana waan afuufi. kadib ilaa uu gurigii dabaysha raacsiiyey. labadii doofaaro yaryarka ahaa ayaa isa soo hor istaagay yeygii cabsida badnaa. kadib hunguri weyni ayaa qaaday yeyga oo wuxuu isku dayay isku marba inuu cuno labadan doofaar oo yaryarka ah. hunguri weynidu aad bay u dhib badan tahay. kadib labadii doofaar oo yaryarka ah waa carareen. intii tabartooda ah ayay carareen. yeygiina waa mid isaguna bursanaya oo yasaya oo socdo oo keliya. markii uu isri albaabka gal ayay isla markiiba albaabka ka xigteen. waxaa gurigii isku waraystay saddexdii doofaar oo yaryaraa iyagoo halkaa cabsi ay ku hayso mid kasta, indhuhuna ay bir noqdeen iyagoo sanka taagaya, aadna u yaaban, cabsina meesha ku hayso. yeygii ayaa isla markiiba gurigii labanada yimid isaga oo ogaa
gidaarada ka samaysan labaniyada inuu gacantiisa ku garaaci karo gebi ahaanna uu yahay mid burburin kara qosol iyo farxadna ay ka muuqato kaas oo og inuu halkaa geli karo casho macaana uu ka heli karo isla cawadan cajaa'ib kadib wuu garaacay iga fura 3 doofaaro yaryarka ahow irida fura ariya doofaarado irida fura maya ma furayno janaweyno ma furayno ilka mishaartan doonaysa inaad hilibkeena ku cunto ma furayno waan afuufi gurigiinana dhulka ayaan la simi oo waan afuufi gurigii ayuu afuufay yeygii oo wuu afuufay oo haddana afuufay awooddiisii dhanba ayuu isugu geeyey oo xagga neefta ahayd laakiin wuu kari waayey ugu dambayntii yeygii waxaa ka dhammaatay tabartii wuxuuna ogaaday inuusan afuufi karin oo ay tamartii ka dhammaatay wuuna mid tabar dhigay ayuu noqday laakiin wuxuu u sheegay inuu kor ka soo geli doono guriga maadaama uu dubin waayey kor ayuu ka soo geli doonaa meesha ay ka baxdaan qiicu meeshuu ka baxo ayaan ka soo geli doonaa ayuu u sheegay doofaaradii yaryarka ahaa waa naxeen isla markiiba oo beerkoodiina wuuba garaacmay laakiin fikrad ayay keeneen waxay shideen dab aad u holcaya ayay dheri ku shideen si ay yeygu halkaa ugu dhaco isla markiiba yeygii wuxuu soo fuulay meeshii qiicu ka bahayay doofaarkii yaraa ayaa daboolka ka qaaday isla markiiba kadib yeygii ayaa soo galay si dhaqsa ayuuna doofaarkii yaraa ugu xiray isla markiiba halkaana yeygii cabsida badnaa ayaa ku dhintay sheekadan haddii aad wuxuu ka fahantay subscribe channelka